السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلامك بعد ولال قصدان وان قصان قلبيغيغا كوهيسان وايي oo aan jeclaystay inaan adiga kula wadaago fadlan adigana sheer garay oo la wadaag walaalkaaga muslimka ah waa wiil dhalinyaro ah oo ay waalidkiisi wax soo bareen oo ay ku soo dadaaleen oo ay waqti ku soo lumiyeen nasiib wanaag waxa uu noqday qof dunida laga yaqaano waxa uu ka mid noqday dadka dunida ugu hantida badan waxa uu nasiib u yeeshay inay hoos yimaadaan kumanaan qofood oo shaqaale ah waxa uu nasiib u yeeshay in dad fara badan oo dunida ku nool ay lacagta uu haysto awgiis u soo hoos fadhiistaan waxa uu dareemay awood dheeri ah waxa uu muujiyay in dad fara badan oo dunida ku nool ay jecel yihiin dadku way jeclaayeen dadku way ka daba ordayeen dadku way soo cabatumayaan dadku way rabaan waa ay jecel yihiin waxaana ay gabi ahaantiisba noloshiisa noqotay mid uu iska hilmaamo wax kasta oo dunidan yaalay waxa uu ka tagay salaadii waxa uu ka tagay sidaas la mid ah xiriirkii Ilaahay kala dhaxeeyay waxa uu gooyay waalidkiisii waxa uu ka fogaaday wax kasta oo xiriira oo ka dhaxeeyay ama xiriir ka dhex sameey jiray asaga iyo Allah subhanahu wa ta'ala qaraabadiisii ayuu xiriirkii u gooyay isagoo kaliya la mucaamiltamayay oo la saaxiibay oo la socday dadka u muujinaya inay jecel yihiin dadka tusinaya jaceelka iyo ixtiraamka iyo ciisaha saa'idka ah kuwaas oo aan ahayn kuwa dhabta ah ee u jecel sida dhabta ah ee xiriirka iyo jaceelka dhabta u qaba noloshiisi waxay sidaa ahayd nin aqli badan oo imaam ah ayaa arkay maalintii dambe wiilkaasi dhalinyarada ah wuxuuna ku yiri warniyahow Ilaahay hadduu hanti ku siiyay ma diinta Ilaahay ugu gargaartid oo aad dadka masaakiinta wax ugu qabatid balse ninkii dhalinyarada ahaa waxba dhag jalaq oo muusan siin waxbana hadalkiisii ka muusan soo qaadin inta fiiriyay ayuu ka tagay waxa uu ogaaday ninkii caalimka ahaa in wiilkaani hooyadiis ay ku nooshahay nolol aad u liidata in hooyadiis ay ku nooshahay guri aad u jajaban oo cariish ah in hooyadiis ay dhibaato ku jirto balse maalin maalmaha kamid ah ayuu mar kale la kulmo oo ka codsaday inuu la kulmo dadkan miye ku jecel yihiin markaas wuxuu ku yiri haa kii fadhiya ayaa ii istaaga kii socda ayaa istaaga kii jiifana hurdada ayuu iga soo kacaa iyagoo markasta hoosteeda jooga lagu heegana qabsanaya ninkii ayaa ku yiri dadkaani kuma jecla haday dadkaani ku jecel yihiin aniga ayaa ku tusinaya dadkaan inay ku jeclaan oo kaliya hantidaada ay jecel yihiin ee qofka sida dhabta ku jecel waa hal qof oo kaliya qofkaasi aniga ayaa ku geenaya waxaad kala baranaysaa dadka dunidaani saaran dadka xaafadaani ku nool kuwada ku jecel iyo kuwada aan ku jeclayn kuwa danta kaale ee aan haba yaraatee ku baahnayn iyo qofka ku raba jismigaaga jecel dhibaatada kula nacab ee ka fikiraya in dhaawac yar ama xanuun yar ku soo gaaro wiilkii dhalinyarada ahaa ayaa waxa laga dhigay inuu geeriyooday naxashkii meedka ayaa la galiyay waana la qaaday waxa lagu soo wareejiyay xaafadii oo idil qof kasta ayaa loo tagay waxaana la weydiinayaa ninkii hebel ahaa uu dhintay waa uu geeriyooday xalay waxa la rabaa qof ninkaan asxaan u sameeya waxaana lagu yiri qofkii lugihiisa ku dhaga ee taabta labadiisa lugood dambigii uu lahaa ninkaasi ayaa ku soo wareegay asagaana dhimanaya wuuna noolaanaya qof kasta oo loo geeyaa ee lagu yiraahdo ninkan waa nin hebel waa ninkii saas ahaa waa ninkii lacagta ku siinayay waa ninkii aad jecleed waa ninkii aad u istaageyseen waa ninkii aad taageersanadeen maanta wuxuu u baahan yahay inuu soo noolaado wuxuuna ku soo noolaan karaa oo kaliya in lugihiisa aad qabatid ka bacdina aad oofisid oo aad tiraahdo aniga ayaa dambigiisa qaadaya dambigiisa adaa lagu soo wareejinaya adiga ayaa dhimanaya asagana wuu soo noolaanaya magaalada ayaa gees laga soo bilaabay waana la soo waayay qof kastana wuxuu yiri soo kiicaasi waalidiinka ahaa ma aha
soo kii lacagta ku ciyaaraya ma aha soo kii isla weynaa ma aha soo kaas oo kidaa fula ma aha waxaa laga waayay xaafadii intaasoo kunoo qof ay ku nooleen hal qof oo naftiisa u hura oo yiraahdo aniga ayaa dhimanaya dambigiisana dhabarka saaranaya asagana ha soo noolaado balse waa la soo waday waxaa loo keenay hooyadiis oo ku jirta guri jajaban oo cariish ah waliba waa indhoole oo wax ma arki karto ninkii ayaa ku yiri wiilkaagii oo meed ah ayaan ku wadaa haddaad lugihiisa qabato dambigiisii dhan aduu kugu soo wareegayaa adiga ayaana dhimanaya asaga wuu noolaanaya balse hooyadiis oo aad u ilmeynaysa ayaa waxay ku jawaabtay maandhow gacanteeda hoo lugihiisa ii saar aniga uma jeedi dambigiisa aniga ha isoo fuulo anigana aan dhinto asaga ha noolaadee aniga og dhibkan ka soo maray intaa markay sheekadii ay maraysay wiilkii ayaa isheen waayey wiilkii ayaa ku jiri waayey naxashkii lugtii ayaa gacanta loo saaray maamadii hooyo lugtii ayaa gacmaha loo saaray ninkii dhalinyarada ahaa waa uu soo kacay hooyadiis ayuu ku dhegay maalintaasi ayuu wuxuu ogaaday qofka sida dhabta ah dunidan u jecel ee naftiisa u huri karta hooyo abaalka ay nagu leedahay dunidaana xaqeeda ma gudi karno haddaad abaalkeeda gudi weysay haddaad abaalkeeda oofin weysay fadlan hooyo ha ku dhimin dunidan dusheeda oo wax dhibaato ha u geysanin abaalkeedii waaba gudi weysay laakiin ha dhibaateynin imise hooyo Soomaaliyeed ayaa dunida ku dhibaatoonaya imise hooyo Soomaaliyeed ayaa maantay dalkeenii Soomaaliya ku dhibaatoonaya waxa dhibaateynaya waa wiilkeedii waa walaalkeedii waa saygeedii waa qofkii ay 9 bilood caloosha ku siday walaalayaal waxa idinka codsanayaa inaad qisadan ila sheer gareysaan oo aad gaarsiisaan ilaahay ajir iyo xasanaad ha ka siiyo